waxgaradka odayaal dhaqameedka ku dhaqan xarunta gobolka Qoraxay ee magaalada Qabri Dahar oo warbaahinta deegaanka Soomaalida SRTV u waramay ayaa sheegay in doorkooda kaga aadan hawlaha nabadgelyada ay kaalin muhiim ah ka qaataan nabadgelyada deegaanka gaar ahaan tan gobolka Qoraxay isla mar ahaantaasina ay sida ugu haboon uga qayb qaataan iyaga oo markaasi kaashanaya hay'adaha nabadgelyada laamahooda kala duwan ee ka howlgala dawladda deegaanka Soomaalida iyo xukuumadda deegaanka. odayaashu doorka ay ku leeyihiin waa doorka ugu sarreeya maadaama odayaal ay dhaqan ay yihiin dadkiina ay dhaqankiisi garanayaan nabad ayna iyagu ka shaqaynin ma guntamayso mana suuroobayso lagamana maarmaba sideedaba sababtoo ah dadkii bay kala garanayaan dhaqankii bay garanayaan dadku waxay markay isdilaan iyo markay arrino dhex marto waxay ku kala bixi jireen iyo nidaamka oo dhan baa la garanayaa hadday mag noqoto haddii gabdha la isasiiyo ay noqoto wada hadal guurti hadday noqoto marka dhaqanka arrinta ay ku leeyihiin nabadda xaggeeda wax hadda laga sheekayn kara maaha waxaan dawladina ku lahayn bay ku leeyihiin waxaa ka mid ah waxyaabaha ay doorkooda ka qaataan matalan markii ay wax isku dhacaan ee dadku carab iyo ilkaha isugu dhawo waa isqoobaan baa layidhi marka ugu horreysa odayaashu waxay tagaan meeshii waxay kala dhex fadhiistaan labadii qabiil iyagoo isu qaybinaya qolo waliba way xakameeyaan nidaamkooday hagaajiyaan markaasaa odayaal laga soo xulaa labada dhan markaa la isu keenaa la wada hadalsiiyaa waxay dhintay agas iyo kafan baa loo kala qaadaa nabaddana markaasay saasay ku bilaabataa aakhirkana markii magta la kala qaato gabdhaha la isu guuriyaa sheekaduna saasay ku dhammaataa waxaan ugu baaqi lahaa oday meel kasta oo uu joogo xil baa saaran ilaahay baa odaynimada gaadhsiiyey bulshada uu ku dhex nool yahayna inuu wax ugu fillaado dhaxal uga tago yaa la rabaa waxaan ku boorinayaa odayaasha meel kasta oo ay joogaan nabadda inay isu taagaan waxyaabaha carqaladda ah ee dadka dhexdiisa inay ka hortagaan inay aslaaxiyaan diinta islaamka inay ku wacdiyaan maadaama dadku dad muslina yahay dhiigga muslimkuna uusan xalaal ahayn muslim dilahayaa wax sharciga islaamku ogol yahay ma aha nabi maxamed baa yidhi calayhi salaatu wasalaam ida altaqal muslimaani bisayfihimaa falqaatilu walmaqtuulu humaa fi nnaar oo macnaheedu yahay dadka muslimku haddii ay dagaalamaan ka la dilay iyo ka wax dilay labaduba naartay galeen buu nabi maxamed waa la weydiiyo waxaa la yidhi yaa rasuulallah bal midka la dilay midka wax dilay garanay ka la dilay muxuu naarta isagu ku muntaystay yaxrisu liqatli saaxibihi wuxuu ku dadaalahayay isaguna waa uu lagala horreeyey inuu wax dilo marka sidaa darteed maadaama dadku dad muslina yahay odayaasha deegaanka ku nool waxaan baaq halkan uga dirayaa meel kasta ay joogaan isxilqaanka iyo nabadaynta iyo garab istaagga dawladda iyo dadka oo bulshada oo la wacyi geliyo wanaaggeeda laga shaqeeyo yaan u dardaarmahayaa odayaashu waxay ku leeyihiin door weyn bay ku leeyihiin maadaama ay yihiin dadkii dhaqanka ahaa waxna waa practical waxna waa caqli waxa la yiraahdaa waa practical waxna waa kasbi weeye marka oday marka la yiraahdo caqli practical oo haystaayo muddo fara badan iyo waxaan soo arkay marka meeshii loo maro wuu garanayaa marka sidaas daraadeed wixii mashaakil ah yimaada say u kala culus yihiin iyo sida loo kala wajahayay iyo meeshii ka bilaabmayaan iyo siday ku fiican tahay odayaashu si toos ah u garanayaan marka sidaas daraadeed odayaashuna waxay u baahan yihiin maadaama ay dad isku xidhan oo aynan ahayn oo macnaha hal madax dhaqameed aynan ahayn odayaal nin walba iskii oday u yahay waxay u baahan yihiin dawladdu inay abaabusho oo meesha wixii ka jira ee u dirto oo ay iyaguna wixii karaankooda ay garshadooda ku darsadaan maadaama iyagu garanayaan dawladdu ma garanayso hadda laba qolo hadday isqabsato waxay og yihiin labada qolo midda kardaramay odayaashu og yihiin waxay og yihiin labada qolo wixii la yidhaahdo wixii ku aadanaa ay ku qaboobi lahayeen odayaashu way garanayaan marka sidaas daraadeed odayaashu waxay yihiin mar walba hoggaanka qaban kara wixii dhib aheed ka dhaca gobolka ka dhaca ama kilalka ka dhaca dadka qaban lahaa weeyaan matal waxaan ka soo qaadanayaa hadda laba qolaa meel bay isku laayeen bay isku haystaan baa la yidhi odayaashu waxay garanayaan meeshaas cidda gardarrada leh way garanayaan laakiin dawladdu ma garanayso ama cidda la gacan horreysay garanaysaa haddii gacan horreyn u dhacdo ciddii gacanta horreysay gardarrana way garanayaan markaas wixii oo ay wada garanayaan bay waxay u aadahayaan sidii ay ku qaban lahaayeen marka
meesha gardarrada meesha wax ka dhaceen iyagoo garanaya ciddii gacanta lahayd iyagoo ballowday iyagoo garanaya ciddaasi wixii ku habboonayd ee lagu samayn lahaa iyagoo garanaya odayaashu toos u aadayaan marka odayaashuna had iyo jeer kama maarmaan meesha markay aadaan dawlad kama maarmaan ileen hebel waad gar daran tahay oday baa wuxuu dhihi jiray hebel waad gar daran tahay lama yidhaahdo waa la qabtaa buu ruuxa gardarrada waa laga qabtaaye waad gar daran tahay tala maaha marka sidaas daraaddeed odaygu markuu farta ku fiiqo meeshii gardarradu jirto dawladdii xadiid lahaydna u baahan yihiin marka sidaas daraaddeed bayna odayaasha iyo dawladdu ayna u kala maarmayn waxaa lagaga baaqsan karaa colaaduhu maanta maalinba waxbay joogtaa maalin geela la kala dhici jiray oo geela la isku maagi jiray maalin hadda maanta laakiin dhulkaa la isku maagaa waxaa lagaga baaqsan karaa dhulku dadku wuu kala deganaa qolaba meel bay deganayd daaqsintuna way ka dhexaysay ceelkuna wuu ka dhexeeyey biyuhuna way ka dhexeeyeen degmadaa laakiin ka dhexaysay waxaa lagaga baaqsan karaa qolada dadkaa ishaysta degaan ahaan meeshaasi qoladaasi biyaha in la wada cabana isuma diidaan sida badan ceelka in la wada cabana isuma diidaan waxaa la isu diidaa meeshan anigaa lehoo anaa degi ay qolana aanaysanayso anaa degi dhibaatada maanta inoogu fara badan ee waa taas waa daaqsinta waxa may la iskuma haysto ceel biyoodyada iyo daaqsinta la iskuma haysto waxaa la isku haystaa ceelkii aad adigu lahayd ama qabiila lahayd ayaa qolo kale inay degto ayadu oy tiraahdo aniga allaho dawladdu ha ii qabray ha ii sharciyeyso marka arrintaas weeyaan arrintaana aqoon bay u baahan tahay iyo oday dhaqameed iyay u baahan tahay marka sidaas daraaddeed hadda dhibaatada ina haystahay dhul weeye waxaan u diri lahaa dadkani meel walba oo la joogo dadka is haysta had iyo jeer waa dadka deriska ah ee ka dhaxayso xiltinimadu gabdhuhu iska qaba waalidka isu ah abtiyaasha isu ah dadkaas weeyaan dadka inta badan labada ruux qolo aan derisayn isuma timaado labada qolo ee deriska ahna waxaa ka dhexeeya xidhiir fara badan xidhiirkaasi in la ilaaliyo oo dadku nasliga iyo nasabka la ilaaliyo oo abtiga waxaa la dhihi jiray wiilkii saddex abti u duceeyaan waa xirsi xidhaya qardhaas looma dhigaa odayaasha la dhihi jireen macnaha abtiga hooyada abtigeed wiilkaaga abtigii saddexdaa dadka islaynaya saddexdaaba marka way wadaagaan oo waa deris marka in la ilaaliyo oo dadkaas deriska ah walaalaha ee isdhalay aynan isku dambaabin oo dhulkoodii ka dhaxeeyay ee kalena guuri maayaan haddii istilaan waxaan leeyahay ayadoon loo kala guurayno haddii 10 dhimato aan la kala guuraynin in walaalnimada iyo nabadda lagu dadaalo taasaan shacabka u fari lahaa dawladdana waxaan fari lahaa dhibaatada soo noqnoqonaysa ee dhulka ah dhinac kasta intii laga eego in dhulkaas lagu kala baxo oo ama lagu kala saaro dadka ama gobolnimo loogu kala saaro ama degmo loogu kala saaro sidaasaan is leeyahay dawladdana dadkana waxaan leeyahay dadka walaaluhu hadduu nag iska dhigo qolo walba meeshaasay deganaanaysaaye halkaa in aan walaalnimada la waayin sidaasaan leeyahay almutafaqaasan dirayaa bashiir cabbaas cali warbaahinta deegaanka soomaalida SR TV magaalada Qabri Dahar